Bismillahirrahmanirrahiim kula wanaagsan daawada halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada wararka habeen qodobada ay idinkugu soo gudbin doonana waxa qayb ka ah faafayna laga helayo madaafiic maanta lagu weeraray magaalada Baraawe iyo dhimasho dhaawac ka dhalatay waxa jirta saameyn doorashadii halkaasi ka socotay ay ku yeesheen warbixin la xiriirta ayaan warka idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal doorashada xildhibaanada ugu horeeyay ee Koonfur Galbeed ka imaanaya baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu doortay magaalada Baraawe ee xarunta gobolka ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed. Ra'iisul Wasaare Roble oo kulan albaabada u xiran yihiin la qaatay safiirka Sacuudiga dalabna hordhigay hadaba muxuu yahay halkan ayaa idinkugu soo gudbin doonaa. Maamulka Somaliland oo kulan la qaatay madaxweynaha dalka Taiwan kadib wafdi ka socda Somaliland oo halkaasi gaaray. Qodobada iyo kuwa kale ayaan ku faahfaahinaynaa wararka habeen ee Somali News ee u diyaar garooba daawadayaal. markale kulan wacan oo wanaagsan waa 9 Febraayo 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda aan baqaano haddii aynu ka hormarno magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed waxaa faahfaahin dheeraad laga helayaa weerar loo adeegsada madaafiic oo maanta lagu qaaday gudaha magaaladaasi oo ay ka socotay doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee dalka. wararka qaar ayaa sheegay in hoobayaasha qaarkood ay ku dhaceen qaybo ka mid ah magaalada gaar ahaan xaafadda Dayax oo ku taala madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya taasi oo saameyn ku yeelatay doorashadii halkaasi ka socotay. ugu yaraan 2 qof ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen halka 3 kalena ay dhaawac ka soo gaareen sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan ee halkaasi. dadka deegaanka ayaa sidoo kale ay soo wajahday xabsi xooggan oo la xiriirta weerarka madaafiicda ah ee kula dhaceen xaafado ka mid ah magaalada Baraawe al-shabaab oo soo tuuray madaafiicdaasi. sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka la geeyay magaalada Baraawe inay sugaan amniga doorashada ayaa howlgal ka sameeyay kadib madaafiicda lagu garaacay magaaladaasi balse ma jirto ilaa hadda wax faahfaahin ah oo ay saraakiisha ciidamada bixiyeen weerarkaasi. xaaladda magaalada Baraawe ayaa haatan degan kadib markii saameyn ku yeelatay ilaa 10 madaafiic oo la dhaceen ururka al-shabaab sida la sheegay oo laga soo riday banaanka magaalada goob aan ka fogeyn duleedkeeda. si kastaba haatee maanka doorashada ayaa marar badan laga digay inay carqaladeeyaan al-shabaab amnigeeda waxaana magaalada Baraawe ah markii ugu horeeyay doorasho lagu qabanayo maanta tii ugu horeysa ahayd al-shabaab ay ku bilaabeen weerarka madaafiic kuwaas oo dhaliyay khasaare kala duwan. isla Baraawe ayaana ku guda jirnay xildhibaanadii ugu horeeyay ayaa maanta lagu doortay magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed ee golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya 11aad ka mid noqonayo. xildhibaanada ku soo baxay doorashada maanta ka dhacday magaalada Baraawe ayaa gaaraya ilaa 7 xildhibaan waxayna kala yihiin 1 Saalim Caliyo Ibrow oo ku guuleysta kursiga ay sumadiisa tahay hoob 165 ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya horey ugu fadhiyay isagoo helay 70 cod halka musharax la tartamayay Aadan Cusmaan Xasan oo helay 15 cod. labo Yuusuf Maxamed Aadan ayaa ku guuleystay kursiga ay sumadiisa tahay hoob 161 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 80 cod halka musharax la tartamayay ahaa Cabdullaahi Xuseen Faarax oo helay 7 cod. 3 Maryan Maxamed Cali ayaa ku soo baxday kursiga ay sumadiisa tahay hoob 44 ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyadoo heshay codad gaaraysa 73 cod halka musharaxadii la tartamaysay Faaduma Xasan Cumar ay heshay 10 cod. Afar Xuseen Cali Xaaji ayaa ku soo baxay kursiga ay sumadiisa tahay hoob 16 ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 81 cod halka musharax la tartamayay Ismaaciil Xuseen Axmed oo helay 10 cod oo kaliya. 5 Cabdullaahi Cumar Abshiro ayaa ku soo baxay kursiga ay sumadiisa tahay hoob 152 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya isagoo helay 83 cod halka musharax la tartamayay Axmed Xasan Geedi oo helay 16 cod. 6 Farxiya Maxamed Cabdi ayaa ku soo baxday kursiga ay sumadiisa tahay hoob 53 ee xubinimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyadoo heshay codad gaaraysa 88 cod halka musharaxadii la tartamaysay ee magaceedu ahayd Anisa Maxamed Xasan ay heshay 12 cod. lambarka ugu dambeeya ee 7aad waxaa ku soo baxay Cabdullaahi Xuseen Cali oo ku soo baxay kursiga hoob 151 ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya isagoo helay 78 cod halka musharaxii la tartamayay ee ahaa Mahad Cali Axmed uu helay 17 cod.
doorashada oo tartan aan sidaa u badnayn loo galay islamarkaana shakhsiyaad lasii saadaalinayo horey loogu xiray ayaa maanta ka dhacday magaalada Barawe caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ahna doorashadii ugu horeysay oo xildhibaanada dalka ee magaaladaas lagu dooranayo. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maamulkii ugu horeeyay ee ka dhabeeya deegaan doorashada labaad, waxaana haatan la sugayaa inay doorashada kale xildhibaanada harsan ay degdeg u soo dhameystiraan, walow inkastoo ay jiraan saameyn xooggan oo haatan ay ka wajahayaan dhanka Al-Shabaab maadaama ay maanta hoobiyaal ku weerareen doorashadii oo meel wanaagsan marayso. Ciidamada kala duwan oo AMISOM kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya boolisba halka loo geeyay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen sugitaanka amniga doorashooyinka si aan loo carqaladayn. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan maanta la qaatay safiirka dalka Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiga u fadhiya Soomaaliya Axmed bin Maxamed Saalax Al Mawlad. Kulanka Rooble iyo safiirka Sacuudiga ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidii abaaraha wax looga qaban lahaa oo Sacuudiga qayb uga noqon lahaayeen gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaaraha xilligan la daaladacayo. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiga u fadhiya Soomaaliya Axmed bin Maxamed Saalax Al Mawlad oo ay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ee labada dal ee walaalaha iyo sidii loo sii horumarin lahaa ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Rooble iyo danjiraha Mawlad ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladaha abaaraha ka jira Soomaaliya iyo sidii dowladda Sacuudiga qayb uga noqon lahaayeen gurmadka la soo gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed abaaruhu ay saameeyeen sida lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaare Rooble. Mar kale kulanka Rooble ee la yeeshay danjiraha Sacuudi Carabiga u fadhiya Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo kulamo looga hadlayo gurmadka abaaraha la yeelanaya qaar ka mid ah ganacsatada, culimada, safiirada wadamada Carabta oo fadhiya Soomaaliya dhawaana uu safar dhankiisa ku gaaray dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Shalay ayay dowladda isku taga Imaaraadka Carabta soo gaarsiisay 2 diyaaradood oo gurmada magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu talagalay in wax lagu qabto dadka Soomaaliyeed oo abaaraha xilligan ku dhufteen. Kadib Ra'iisul Wasaare Rooble codsi u gudbiyay dowladdaas oo ahaa inay ka jawaabaan dhanka nolosha ee dadka Soomaaliyeed abaaraha xilligan ay saameyn ku yeesheen oo xoolahooda qaarkood ku waayeen. Dowladda Sacuudi Carabiga ayaa dhankeeda la qorsheynaya in maalmaha soo aadan ay soo gaarsiisa magaalada Muqdisho shaqada ay ugu tala gashay inay wax looga qabto abaaraha ka jira Soomaaliya isla markaana dadka Soomaaliyeed ay la qaybsanayaan abaaraha ku dhuftay dhowr sano ee soo noqnoqday. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dadaal xooggan ku bixinaya sidii wax lagu qaban lahaa dadka abaaraha ay saameeyeen, isagoona gudiyada abaaraha iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada faray in qof kastaba in dhaxda loo xirto sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed. Inkastoo dalka uu doorasho ku jira haddana waa laba shaqo oo isga socoto. Markaana Taiwan iyo Somaliland ayaa ballaarinaya xiriirkooda dhaqaale iyo mid siyaasadeed inkastoo ay yihiin laba dowladood oo waayihii dambeba raadinayay sidii madax bannaani caalamka uga heli lahaayeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Ciise Kayd ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha Taiwan waxaana sheegay in booqashada Taipei go'aanka adkeysiga leh ee aan ku ballaarinayno kulan dheeraynayna saaxiibtinimada iyo iskaashiga aan gaarsiinayno heerka sare ee faa'iidada leh ee labada dal ayaa lagu yiri qoraalkooda. Madaxweynaha dalkaas ayaa tilmaamay in xiriirka mid ka mid ah guulaha diblomaasiyadeed ee ugu weyn ee maamulkoodu yahay kan kala dhexeeya Somaliland ayaa sheegtay in Soomaaliya ka goodo 1991 waxayna xiriir diblomaasiyadeed la leedahay dalal kale. Taiwan ayaa iskeeda isku maamusha balse China ayaa sheegtay oo inay ka mid tahay ayaa xiriir diblomaasi la leh 14 dal balse xiriir aan toos ahayn oo xooggan ay la leedahay Mareykanka inta badan dalalka caalamka. Taiwan ayaa safaarad ka furatay magaalada caasimadda u ah Somaliland ee Agoosto bishii ahayd 2020 halka Somaliland ay dhankeeda safiir u dirsatay magaalada caasimadda u ah dalkaasi. Taiwan iyo Somaliland ayaa aqoonsi waxay ka raadinayaan iyo ixtiraaf raadin dowladaha caalamka balse wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaana ka dhawaajinay Taiwan iyo sidoo kale Somaliland ay ka wada hadlayaan xiriirka soo jireenka ee labadooda dal. Waa sidoo Xuseen Kayd uu hogaaminaya wafdi wasiiraha oo ka socda Somaliland ayaa ku sugan magaalada caasimadda u ah waxayna labada dhinac amaaneen iskaashigooda sii koraya ee arrimaha beeraha, kalluumeysiga, waxbarashada iyo tamarta. Afhayeen u hadlaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ee ku sugan Beijing ayaa dowladda xisbiga DPP ee Taiwan ku eedeeyay
dab hurin iyo waxyeeleynta madax banaanida iyo sharafta dhulkooda dal kale. Waxaa Somaliland waayihii dambeba ay dadaal ugu jirtaa sidii xiriiro wanaagsan oo loo yeelan lahaa dalalka caalamka maadaama ay sheegeen inay ka go'een Soomaaliya inteeda kale isla markaana ay xoogga saarayaan sidii u horumarin lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadeed ee caalamka. Inta ayaan ku soo afmeeraynaa tabinta wararka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News Khiyaari mid lamid ah inta ku kulmi doona nabadgelyo ayaa idin leenahay. Fadlan muuqaalka hadduu ku soo gaaro sii share garay saaxiibadaada la wadaag.